waxaan wanaagsan daawadayaal halkan waa hodman shawana waxaan hodman cadcid geelle ku soo dhawaada barnaamij xiisihiisa wata waxaan caawa ii martiyo halkan ku wada sheekaysan doonaa wareysi ma dhihi karee wariyihii aan ugu jeclaa wariyayaasha of afreedkayga ahaa markii aan yaraa aan daawan jiray maxamed xasan xaashi si weyn baan kusoo dhaweynayaa maasha allah hodman runtii ana sharaf bay ii tahay farxad bay ii tahay gabadh iyadoo da'yar daawan jirtay inaan maanta stuudiyahan quruxda badan aan la fariisto wareysna ila yeelato marka wandhow waad mahadsan tahay waa tahay bal waxaan ka bilaabaynaa maxamed xasan xaashi dadku waxay barteen isagoo ah wariye ka shaqeeya TV-gii caanka ahaa ee ESTV oo dee waagaas warbaahintu aysan saan ahayn bal marka hore maxamed waa kuma maxamed waa maxamed xasan xaashi ku magac dheer maxamed Soomaali u dhashay deegaanka Soomaalida wax ku bartay ku dhaqmay ku dhalay ka dhoofay waa hay maasha Allah maxamed waa ninkaasi waa tahay saxaafadana muddo badan ku jiray sidaad sheegtay ESTV-na runtii muddo ka shaqeynayay xukuumadan ka horeysayna wariye u ahaa maasha Allah kana anbaday ka hayaamay 2015 bishii 8aad dadku way tahriibeen bay yiraahdaan uu baxsaday si walba ha noqotay maxamed waa ninkaas hadana soo nabad noqday muddo 10 sano kadib ma sha Allah waa tahay bal maxamed iyo saxaafadu xagee iskala jaan qaadeen wallahi hodman markii la yiraahdo saxaafada xagee iskala jaan qaadeen waqti dheer bay noqonaysaa markii laga yimaado dhalinyaranimadii iyo caruurnimadii iyo waxaad xiisaynayso saxaafadu waxaan ka bilaabay ismaamulka Dirdhaba magaalada Dirdhaba waxa laga sameeyay FM Dirdhaba iyo TV la dhihi jiray Dirya TV runtii dhalinyaro aad wanaagsan ba ka warrami jirtay idaacadaasi halka ku taalay waxaan kamid ahaa dadka dhageystiyaasha oo aaraada iyo ra'yiga dhiibtan ahaan jiray nin dhalinyaro runtii aad wanaagsan haddana halkan jooga Xasan Ciga la yiraahdo ayaa wuxuu ahaa barnaamij daadihiye doodo ayuu sameyn jiray marka mar walba markaan ka soo qayb qaato erayadeedii iyo ra'yigayga wuxuu ahaa kuwa la qaato marka magaca maxamed Soomaali oo adsaba kala yimid mar walba markii la yiraahdo magaca maxamed Soomaali baan dhihi jiray marka Xasan Ciga wuxuu iga codsaday wuxuu yiri maxamed oo nin xogaa codkarna wadu eg tahay bal ma nagu soo boqon kartaa idaacadii baan ku booqday sidoo malihiisa u ahaa malaka duwan buu noqday wuxuu yahay oday Soomaaliyeed oo talooyinkii raayada aad ugu fiican nin dhalinyaro ayaa noqday wuxuu yiri nin odayan ku haystay maxamed Soomaali odaygii baa soo galay baan dhihi jirnay niw si isku tihiin biir inaad warantid oo sid u aragtaa niw waxaan ku yiri waxaan wax igu beeran ila yaraanteedii baan saxaafada jeclaa wax baan duuduubi jiray dadkii ila yaraanteedii yaqaanay cajaladaha wax ku duubi jiray wallahi cajaladaha qaarkood aan wareysi ku sameyn jiray anoo gabdhaha walaalay qaarkood wasiiradda haweenka aan ka dhigay oo kale wareysanayo oo kale baa cajaladii la hayaa marka Xasan Ciga markii waxay ii sheegeen inaan markiiba barnaamij bay ii dhiibeen barnaamijka salaamaha barnaamij entertainment ah xaggaasan ka bilaabay ka jaan qaaday reer Dirdhaba iyo reer Shiniile ee gobolka City ee area-daasi idaacadu ay gaaraysay TV-ga ayaan waxaan ka noqday nin ka soo caan baxay maxamed Soomaali baa soo galay sheekooyin taxana ah oo dhalinyarada ay xiiseeyaan ma soo gelin jiray marka aan baqaadkayga saxaafada inaan ku soo milmo oo soo dhex galo 2008 bay ka soo bilaabatay ee Dirdhaba waa xilligaad adigu yaray marka ma sha Allah televisionka ESTV iyo FM Jigjiga oo la yigleelay ama la aas-aasay hadaanan khaldanayn 2009 2010 meelahaasi ayaa aniga iyo Xasan iyo wiil Sharmaarka la yiraahdo qaybta IT-ga oo waxyaabaha editing aad ugu fiicnaa ayaan tababar ahaan halkan loogu soo diray inaan dhalinyaradu bal xoogaa maadaama saxaafadda aan kaga horeynay inaan tababar siino tababarkii ayaan markaa waxaan arkay fursad meesha inay ka bannaan tahay way Dirdhaba marka loo eego shaqadan hayay iyo waxa meesha ka helay isma lahayn waxaan arkay meesha saxaafad inay curdan tahay dhaqaale badan lagu bixinayo dadka ay xiiseynayaan isla maamulka deegaanka jira xukuumaduna dhaqaale badan ku bixinayso fursadan ka faa'iideysaan ma aragtay aad ku nimcoodeeyay maray markaa joogay ayaan la hadlay waxaan ku maarayay waxaan u baahnay saxaafadda Dirdhaba inaan ka soo wareego tan inaan imaado وكسر وين نابير لابد كوني طبعاً كي لابد كوني كوي طبعاً كمال هسه هاي بانو ملايين مركان ESTV
waxaan aaminsan inaan ahaa ninka ugu horeeyay satellite-ka marka la geliyay ESTV habeenka ugu horeysay ankarka warka la akhrinay qofkii ugu horeeyay warka akhriyay baan ahaa ma sha Allah waan dadaalay waa ka dhex muuqday dhalinyaradii runtii rag aan aad u jeclahay oo iga talent fiican sida Ismaaciil Ibrahim Boorgaabo oo runtii aan aad u jeclahay ah Faarax Cabdi Dubbad Xasan Cige ma soo koobi karo gabdhihii dhalinyarada ah Haboon Ugaas Faiza Maxamed Colaad Nimco Xuseen dadka la soo shaqeeyay dhalinyaradu ilaa hadda way joogaan dhalinyaradaas way gacan qabteen way dhalinyaro fiican bay ahaayeen dareemaya qofku wuxuu xiiseynay inay ku garab istaagaan marka group Ismaaciil Boorgaabo iyo Faarax Cabdi Dubbad uu kamid yahay ayaan waxaan noqonay saaxiibo dawladii baan aragtay sidaan wax u tabinayno dawladii marka wayna la jaan qaaday warbixinadoodii iyo wixii marka ay u arkaysay propagandadooda ayay marka nagu meel marinaysay ayaguna dhaxmarsada shaqada wana dhaxmarsay marka adigu wariyaal waxaanu ahayn runtii xirfad yaqaana at the same time waxaan ahayn hibadeena ku meel marayna laakiin xukuumad u shaqeeya xaqada marka laga hadlayo nin xukuumad u shaqeeya ma madax banaana xurmaha qofku markuu xukuumad u shaqeeyo dawlad u shaqeeyo oo warbaahin dawladeed uu ka shaqeeyo ma noqon karo wariye madax banaan waa saamar laftii wasfac ma dareemaya marka wixii scriptiga lagu dhiibo ereyada lagu dhiibo hadaad wax ku darsato adaa ku eedaysan marka xiliyada ereyadana laga jeegrin jiray baa jirto liira ereyga qaabka u dhigtay sax maaha warbixin anigu aan tabiya dhibaato iga soo gaari jirtay marka muhiim kuwaas u gali maayo laakiin su'aasha adiga weydiisay uma ku soo noqonayaa saxaafadda xilligaas aan bilaabay 2015 bishii 8aad anigoo ku dhex jira ayaan wadankan ka tagay Mareykankan tagay ma joojin waxaan noqday nin ku shaqaysta darawalnimo truck driver baan noqday anoo taraagi wadan warbixino sameynay meeshan taga barnaamij baan ka sameeyaa at the same time waxaan sameeyay TV la dhaho US Somali TV ka horna dhalinyaro Somali TV of Minnesota la yiraahdaan oo warrami jiraan barnaamijyada kala qayb qaadan jiray saxaafaddu markuu wax igu beeran oo aad u jeclahay marka xilligaas ay ku soo bilaabatay waad adiga hadda ay wareysanaya waa tahay baraha internetka ayaad ka daalan kartaa US Somali TV hadii aad danaynayso inaad Maxamed Soomaali mar kale dib u daawato oo runtii aan filayo inuu soo kordhin doono waxyaabo runtii aad iyo aad u xiiso badan linkiga hoose ayaan ku lifaaqi doonaa barnaamijka inta daawanayso waa tahay Maxamed hadii inta aan la gaarin TV-gii aad magaalada Jigjiga adiga saaxiibada calanka u taagteen daawadayaasha badan iyo taageerayaasha badan aad ku yeelateen bal si aan maskaxda dad badan dib ugu celiyo bal maanta waxaan rabaa inaad marka idaacadda ka shaqeyn jirtay barnaamijka ugu horeeyay balaad caawa tusaale yar ka samayso wallahi horta hodanay barnaamijyo badan baan sameyn jiray wararka badanaa baan anigu waxa la ii xil saaray dhalinyaradu waxay aad iigu jeclaayeen inaan ankarman qofka warka akhriya ayaan aad ugu fiicnaa isuudeen aan soo fariiso oo war isku xiro fiican noqdo oo shaashada soo fariiso dhalinyarada qaarkood waxay igu yeeri jireen shaashadii baa timid laani shaashada aad baan ugu soo bixi jiray iyagu sheegeen habeenkan ku qornahay dadka xiise gooniya bay u lahaan jireen aniguna igama ahayn inaan dadka iska gado runtii waxaan dareemi jiray jacaylka aanu qabo baan soo gudbin jiray inay dadku wax wanaagsan ay dhageystaan arkaanna wararkaas aan tabin jiray barnaamijka qaryandhoodaan baan xiise gaara dadka ugu sameynay Kali Got Talent oo anigu aan daadiyay aniga saaxiibkay Boorgaabo waraysiyan sameyn jiray oo martida toddobaadka la dhaho badanaa marka dadka qaab salaanta soo gelidda aan markaan warka akhrinayo iyo ka bixidda ay aad u xiiseyn jireen marka salaanteed waxaan oran jiray salaamun min Allahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marwooyin iyo mudanayaal halkani waa ESTV markaan ka sii baxayna waxaan dhihi jiray nooli kulante habeen hore aan suuqan ku qabto loo sheegay nooli kulante markan wallahi xiise gaar ayuu lahaa si kasoon xukuumadda ugu shaqeynaynay haddana bulshada ayaa waxay ahayd xiisaha ay u hayaan jacaylka ay u hayaan dareenka ay u hayaan oo ay ku muujinay meel kasta martidba iyo karaamada lagu samaynayo maxamed baa meesha maray sawir ma ku geli karaa qolada Hollywood kan Soomaaliyin jir markaan meelaha maray dadku ma jirin laakiin dareenka jacaylka dadka markay ku tusayaan waad farxaysaa aqoonta iyo ixtiraamka bulshada ay ku hayaan sometimes waxbay ku taraysaa dhiirgelin bay ku noqonaysaa qofka wanaagsan maran Mareykan kullu may xataa ESTV bay badbaadiyay in la iga bartay waxa dhacday meel anoo ku habawsan meel exida aan raadinayo ayaa gabar i garatay gabadha waxay ku tiri soo maxamed Soomaali ma tihid marka adigu qaab waxay u tiri hadal ah
wiilka TV-ga dhaantiin jiray ka hadli jiray Soomaaliyeed marka waxaan ku rahaa walaal waanahay oo waxay tiri hooyadii aad ay ku jeceshahay maamooyinka wax kale naguma inaan jeclaan waayo barnaamijyada dhaqanka iyo dhaantada iyo bilicda iyo waxyaabaha dhaqanka ku qotamaan soo dadka waaweyn iyo dhalinyarada aad bay noo jeclaayeen marka wad maray warbixino badan oo aan anigu tabiyay iyo barnaamijyo badan oo aan sameeyay iyo warar badan oo aan tabiyay intooba maanta YouTube meel bay ku jiraan dadkana xiisa gaari u leeyihiin dawladdu waa ku faraxsan anigu waxaan kamid ahay daawadayaashii aadka ku daawan jiray aadka ku jeclaa ma sha Allah qeendhada waxaan xasuustaa markaad aadihinayseen gobolada markaad tagteen markii ratiga aad fuushay meesha gobolka Doolo Wardheer si cajiib ah loogu soo dhaweeyay waxaan xasuustaa markaad la kulanteen ninkii ugu gaabnaa deegaanka gobolka Afdheer buu ka soo jeeday ad kor u qaaday ninkaasi waxa la yiraahdaa wali baa la yiraahdaa nin aan aad u jeclahay wali xilligaasi 28 sano jiray haddana malaha 40 sano jira 38 buu jira maybe way 10 sano maqana waan isleegna ma sha Allah waa tahay bal waxyaabihii kugu cajiibsanaa inta warbaahinta ku jirtay deegaanka aad joogtay hal iyo laba hadaad soo qabato maanta Soomaaliya maxay noqonaysaa wallahi horta hodmane waxyaabo badan baa jira waxyaabaha qaarkood ma jeclaysan inaan ka hadlo badanaa horta barnaamijyada anagu iyo warbixinadeena iyo wararkeenu kuwa siyaasadaysan oo dawladaysan bay ahaayeen gobolada marka ay tagtid oo kale dadku dad runtii xiisa gaaray wada leeyihiin oo dadku deegaanka way jecel yihiin dawladdu way jecel yihiin marka meelaha qaarkood gobolada marka ay tagtid on TV laga arag waxay ku oranayaan idaacad bay ka dhageysanayaan Maxamed Soomaali bay maqlayaan way kula yaabayaan waxay ku leeyihiin ma ninka idaacada ka hadla ayaa maanta halka maraya laba arrimood waxa dhacday jigjiga iyadoo TV-ga la iga daawanayo way TV-ga badanaa 8 fiidnimo live ku soo gali jiray ana xasuustaa wararka markuu live waa la duubi jiray 3 jeer ilaa 4 jeer baa lagu celin jiray London Cafe baan duhurnimadii soo galay anoo iska bun raadinaya TV-ga aad baa loo daawan jiray dadka marka TV-ga ku fogaan yihiin way daawanayaan anigoo markaa soo galay oo warkaygii iyo introogii soo galay iyo anigoo London Cafe soo galay caadi sidii qof caadi u socdo TV ku jirin shax qaadanay TV-ga soo galay waa Maxamed Xasan Xaashi oo warka tabinaya iyo Maxamed Xasan Xaashi oo TV ku jira socda dadkii TV ku jiray mid kamid ah ay soo jeestay way arkay dadkii dhan soo jeeday aga marka halkaas la eega aniga la eeg dadkan marka maalmahaasi xoga aad umayna haysan inuu qofka TV ku jiro mar walba inuu meesha dhex fadhiyo moodaya la yaab marka igu ahayd anigu marka arinta igu la yaabka badnay markaan dirraba ka shaqeynay nin Hereeri ah af Soomaaliga aan aqoonin ba mixerka noo haya marka sheekada taxanaan ka shaqeyn jiray sheekada taxanaha live way wuxuu ii sameyn jiray markaan hadlayo background music way ii sameyn jiray music yar oo classic oo codkayga hoos gelin jiray light yar ba on air marka tahay light ba casaana daarmaya waa soo galay lightka casaankan arkay inuu ii bilaabay baan mooday marka sheeka cajiib aan ka sheekeynaya waan iskala bixinaya codkii baan beddelaya macaaniin baan ku wadaa ilaa intaan daldalmayo hawada kuma jiraba meel cidlaan u daldalmaya sheekadii baan dhameeyay waan soo baxay ka waran ma kurmaan sheekada ma sheeka maxay abu maanta dhan warbixin waan daldalay ma ba ku sii deyn hawada maada ku jirinba أنا ما ذهين. sometimes marka communication ka haddii qof aan isfahansaneen barnaamij ku xiriirinayo way adkaanaysaa hadda dhalinyaro Soomaali oo engineer ah ba kaamiradihi iyo mixerkii wax walba inoo haya laakiin qof markaan af garanayn wixii kula marka soo luqada ay qofka fahmaynaad ku hadlaysaa marka wallahi hadda su'aasha iska kadis bay ahayd waxyaabahan iga soo maray way badan yihiin marka intaas ma ku soo koobi lahaa aad iyo aad waa tahay intaas waa arrimihii warbaahinta محمد حاجة كل شيء حاجة كصبر باري كرتان كيسة نلشيسة والله محمد أنا وحن كل شيء كونفور صومالي كل شيء وحن كل شيء مجال لي رهدو قنصح دير قبل كباي إيش هذا كحران جري إيش هذا كحران جري هو يدي بحتى إيش شكتي أروس كذي إنه كسوق يبقى قبيه كتري هذا هو أشوف هذا هو يحل قاعد سوق كحران مركب مجال هذا سام كل شيء يعني دور إذا تمنشرة حلقة قحي بانكسو تجني
gobolka Doolo degmada Galaadiyad baan nimid kadib Addis Ababa Diradhaba waxbarashadayda ilaa Addis Ababa shaqadayda ilaa Jigjiga noloshayday halkaan bay ku bilaabatay ilaa halkaan ay ka socotaa marka ma sha Allah barbaarintii dhalashadaydu xaggaas ay ku dhashay halkaan aan ku barbaaray Ethiopia ku barbaaray ilaa gobolka Wardheer Addis Ababa Diradhaba ilaa Jigjiga waa tahay xilli aysan social media jirinin baad wariye ahayd oo wariyaashu ay kooban yihiin oo fanaaniintu ay kooban yihiin oo dadka xirfadlayaashu ay kooban yihiin oo wax walba ay aruursanayeen oo xogtu ay aruursanayd oo wax walba maanta waxaa saxaafadii ku dhex jirtaa weli lagaa jecel yahay adoon wax badan aan muuqaalkaaga isbedelin ay jikaago laakiin social media iyo saxaafadii iyo wax walba ay meesha ugu dambeysay marayaan oo ay tageen labada arrin markaas barbar dhigta balka war wallahi hodmanayd maanta waad arkaysaa awal waxa la sugi jiray BBC xilliyadii hore idaacadda BBC waxay sheegto ayaa kan baadiyaha joogay kan magaalada jooga warka ka raadsan jireen xilliyadeeni idaacadahan wixii annagu aan sheegno ama Maxamed Soomaali ama wariyaasha kale ay sheegaan ayaa magaalada la isla dhaxmari jiray maanta adduunka waxaynu maraynaa technology-gu oo aad u heersareeyo social media-ha guri walba iyo goob walba iyo cid walba ay maanta u fududahay ilmaha yarka iyo ciroolaha telephone smartphone ay haystaan wixii dhaca within second way la socdaan marka warbixintaada xiisa ma laha wariyaha maxaa loo dhageystaa waxaan la ogeyn inuu soo tabiyo inuu sheego oo xiisa leh maanta dhalinyarada saxafiyiinta way dadaalayaan dhalinyaro fiican baa jirta oo talent leh oo aqoon leh laakiin haddana waxaa ku lamaan dhalinyaro badan oo jibaysan baan dhihi karaa laakiin way iska jecel yihiin laakiin angalkii iyo qaabkii iyo wadadii iyo meesha loo mari lahaa qaab saxaafadeedku hadday noqoto anshaxa saxaafad ethic of journalism ma yaqaanaan eray bixinta ma yaqaanaan saamaynta uu yeelan kara ereygan kama fiirsadaan waxay kali u nugul yihiin in ay sameeyaan ay ku fekeraan imise qof baa ku daawatay imise dollar ama senti baa kaaga soo dhacaysa nolol maalmeedkiisu buu ka raadiyay in uu ummadda wax ugu taro ama nafsadiisa horumar uu ka gaarsiiyo way yar tahay TikTok baad maqlaysaa Snapchat baad maqlaysaa everywhere oo la isticmaalo waxa ka socda waxyaabo runtii qofku uu jeclaysanay dadka marka warbixin ma bixiisaynayna isku dhacay baa leeyahay yaa isdilay yaa waxyaalo noocaas marka social media hadda kor warbixin baan ka sameeyay waxaan leeyahay aytan ad aan noqotide qofkaas muxuu u baratamayaa sidoo magaciisa meel uu u soo baxo wixii doon laga sheego gabdhii dharkay soo dhigteen wiilashan dharkay soo dhigteen maxay raadinayaan Allah ninkii nin hebel baa dharka dhigtay waa la yaqaan videos in la wado taacaan lagu ma noqdo waa lagu muunad beela waa lagu magac beela meel lagu ma gaaraysid marka anigu social media xilligan la taagan yahay waa xilli casri ah ka saameyn badan kii hore ka fiican laakiin WhatsApp laba af leh ala dhadhankii warka uu lahaa iyo warbixinada uu lahaa maanta macna ma sameeyo qof kasta qofku uu wareysanayo waa inuu wixii iska qaataa kadibna uu u waramaasado isagu rabo inuu ugu dhigo waa ma oran karo wariyaasha oo dhan laakiin dhalinyaro jibaysan oo hadda ku soo biiray saxaafaddu way jiraan qofka hadduu saxafi noqonayo waa macallin wey macallinkana maxaa laga bartaa anshaxa akhlaaqda iyo dhaqanka laga bartaa iyo wax wanaagsan hadiise uu yahay macallin edab daran oo dhaqan xun ubadkii iyo bi'adii uu biinaya marka waxaan oran lahaa dhalinyarada saxaafadda ku jirta in ay u fiirsadaan waxay tabinayaan siday u tabinayaan iyo xilliga ay tabinayaan marka social media hana runtii waa aalad aad looga faa'iideysanayo annaga badamaanta in halkan fadhino social media inoo saamaxay in la daawado social media inoo saamaxay marka intaas ku soo koobi lahaa waa tahay maxamed 10 sano kor wuxuu ahaa wiil jigjiga ku nool 10 sano kadibna wuxuu ku nool yahay dalka Mareykanka bal nolosha qurbaha iyo noloshii halkan aad uga tagtay maanta aad ugu soo laabatay isbabar dhigeeda maxamed ahaan ana ogana tahay in aragti dheer qofka saxafiga dadka lamid maahan waxa dadku arkin buu arkaa maybe xoga aysan dadku ogeyn caadiga inaad ogtahay bal arinta hadda maanta isbabar dhigto maxaad oran lahayd ama aad uga waranto dhalinyarada qurbaha oo hanqal taagaya dalkoodii ka tagaya hodanay aad baad u mahadsan tahay anigu anoo nin weyn ah oo intayda like ban jigjiga ka tagay xogaa un baan moogahay weli wax isbedelay ma jiraan deegaankaygu maan ka tagay ku soo noqday qurbaha markii laga maqan yahay uu magac weyn yahay
runtii qof walba hadda intaan halkaan fadhino dhalinyarada qaarkood waxay leeyihiin maxamedow halkaad ka timid baan jeclaan lahaa inaan kuu dabamarno laakiin hal arrin baan sheegaya in badan waan ka warramay macaanka iyo micnaha iyo qaraarka uu leeyahay qurbo anigu meeshaan ka arkay ma sheegaya the land of opportunity baa la yiraahdaa Mareykanka marka adduunka oo dhan laga yimaado waa wadanka fursadaha iyo wadanka riyada ayaa la yiraahdaa qof kasta oo adduunka jooga kan Yurub jooga iyo kan Asia jooga iyo kan Afrika joogaba waa meel ay ku haminayaan oo ku riyoonayaan America qofas sibu u tagay qof magaca iyo maamuuska iyo magaca Mareykanka uu leeyahay hebel Mareykan buu joogay hebel Mareykan buu joogtaa ay u tageen oo baahin nololeed aan ay ka tagin ama arrin siyaasadeed oo curyaamisay noloshiisa iyo himiladiisa aan ay ka tagin ay ka tahay kaliya halkaas aan tagno anigu Mareykanka 10 sano aan joogaa dhinaca wanaagsan baan u eegaynaa waa wadan aad looga shaqaystay dad awooyaashood ay ka taxadareen baa iskala dalkaasay wadooyin 200 iyo 300 sano ka hor la dhisay oo freeway ah ayaa ku yaala dabaqyo iyo bridgeyo aad yaabayso 10 is dul saaran ayaa ku yaala dhaqaaluhu iyo hantida iyo shidaalka iyo waxaan ku waxyaalahan maartay bini aadamku ay ku noolaadaan wax kaas waa loo diyaariyay dad waa laga taxadaray anigu dad laga taxadaray baan ku dhex noolahay ixtiraam kuma haysto magac kuma haysto mansab kuma haysto haddii maanta wax iga khaldamaan tol iyo ugaas iyo garaad isoo daynay ma jiro marka waxyaabaha qurbaha marka la yiraahdo qofka hadduu dhalinyaro yahay wax barasho fiican way taala oo qofka wuxuu hadduu xiisayn wax barasho fiican oo ku meel maro adduunka meel walba uu ku aado weelaada dhaqaale fiican baa laga sameeyaa oo qofka haddii ay ka go'an tahay millions of dollars oo Soomaali leh oo dadka cadaanka la tartamaya jooga guryaha ay ku nool yihiin aad yaabaysid baabuurta ay wataan aad yaabaysid qof baa half million gaari wata qof baa million gaari wata Soomaalida qaarkood million of dollars oo guriga degan yihiin iyaga iska leh waa pay off baa lahaa riyadii Mareykanka ay gaadheen haddana at the same time iyagoo intaas nolosha haysta way cabanayaan way ooyayaan xanuun baa la hoos dhigay waxa la yiraahdaa nimco walba nusqaanteeda leh dhinaca ubadkii baa laga geliyay ama qaarkood ubadkii baa ka xumaaday xabsiyaday ka galeen gaangis bay ka noqdeen drugs bay barteen raydka qoys burburka waa number 1 way qaar dhaqaale isku haystaan qaar maaragtay noloshii iyo mas'uuliyadii baa la isku fahmi waayay wax walba oo dhibaato ah nimcadii aad heshay nusqaanteeda hoostaala dhalinyaradii hadda yaacday rag badan iyo gabdho badan oo dadaalay oo markiiba nolosha reerahooda wax ka bedelay baa jira iyaguna wax iska bedelay iyo qaar badan oo walwal iyo walbahaar badan la galay oo ku haya meesha nolosha maxay tahay way nolosha hodmanay gaari qurux badan baan wataa guri qurux badan waan deganaa laakiin ma faraxsani hadeertan adigu aad wareysanayso biilash igu taagan madaxa ay xanuunaya warqadaha ii soo dhacay liisoo sheeg naxdin man ka si qaadaya adiguna waxa laga yaabaa markaas saxatiinada walwal ku haynin iska seexanayso aad ka fikirayso bari beerka shiilana aad cunayso nolosha fresh ma aha cuntada fresh ma aha hawada fresh ma aha account-kaaga lacagta soo galayso waa mid adigu aadan lahayn Mareykanka marka waxa weeyaan waa lagu shaqaysanaya waana laga shaqaysanaya lacagtu waa lagu dhiibaya waa laga qaadaya meel kira laga qaadaya gaari qurux badan baa lagu leeyahay waa 30 40 iska qaado bishii $1,000 iska bixi bal bil walba $1,000 kugu taagantay ka war adagta marka nolosha qurbaha waa marka lagu leeyahay stress baa ma maqashay dadkan depression baa haya maxaa ka keenay waa noloshan dhibaatada jirta يعني علمي باد كفكريسا ريركي باد كفكريسا علمي اسكولكي waxbarashadii waxa maamooyinku way dhiban yihiin raggi way dhiban yihiin ale wala soo dhiban yahay anigu 3 cishan hadda maan jigjiga jooga waa faraxsanahay noloshii runta shalay aan ka tagay macaanid baan u imid hurdo fiican baan helay hilib fresh aan cunaya hawo fiican baan laakiin ogxantaydu waxay taalaa Mareykanka walwalkoodii walbahaarkoodii ay haystaan marka waxaan oran lahaa maadaama anigu jigjiga anoo 40 jir ka tagay halkaasina aan joogo waxaan oran lahaa warnimo yahay dhalinyarada waliba
wallaahi intaad nimcadan maanta aad ku dhex jirta aad haysato ma dareensanid maalintaad ka baxdaad dareemaysaa war jigjiga waxa yaalla maraykan ma yaalla hal arrin baan oran lahaa anigu maanta maraykan baan ka imid meelaan afka lays qaban baan ka imid xukuumad iyo cid walba hadday tahay waxay ku khaldantay inay qaadato wey xukuumad iyo dal waxay wax ku yihiin waa dhalinyaro wey dhalinyaradu in si gaara loo eego ninka waxbuu bartay jaamacad buu ka soo baxay meel aan u qalmin markii la geeyo xagee buu aadayaa wuu niyad jabayaa dhalinyarada in loo sameeyo shaqo abuur badan heerka waxbarashadiisa heerka uu maraya meel uu u qalmo in la geeyo dhalinyarada hibada iyo talentiga leh inaan loo horseedin dalka inay ka baxaan codkooda la dhageysto way dhalinyaro kuma faraxsan inay dalka ka baxaan laakiin markii loo horseedo isagoon faraxsanayn buu baxayaa deegaankiisana rajo uga soo noqdo ma arkayo marka dhalinyarada in rajada la tuso dhalinyarada laftigoodana rajada inaysan sugine iyaga laftigooda inay raadsadaan maanta jigjigan meelba maray hal qof oo Soomaaliya meel ka shaqeynaya waay dadkan buuraleyda nala jooga dadka buuraleyda yaa fursad siiyay dhalinyaradii baa siisay anigu hadda timajarnimada aad baan u aqaana inaan hadda waxaan rabaa meel furto timaha jaro tolkii haddii qabiilkayga saaran hayga saareen laakiin anigu shakhsiyaddeedan aaminsanahay tol waxba igama gelin anigu maalintii jeebkii wax soo galaanba waxa dadku i karaameynayaan maalmaha waristima aan jar waxa leeyahay ina xasan timajar buu bilaabay laakiin markii meesheedu weynaato shaxaadkii baa looga imaanaya cashuur sarkan dhalinyarada waxaan oran lahaa war wajigeena cidina ha u joojinina walaa gabar aad shukaansataan ha u joojinina walaa qabiil ha u joojinina waxaad isleediin waxbaad ka soo saaranaysaa dhagaxa jabiya timajara noqda meel allaale meesha doontaan gala berri kan loo shaqeeyaad noqonaysaa ninka Bill Gates muxuu yiri anigu wax ma baran buu yiri laakiin dad wax bartay baa ii shaqeeya war maalinta waxay shubad wax tahay moogtahay marka qurbuhu waa waxaan ku qiyaasa ma garanayo anigu maanta ma faraxsani maraykan ma joogo sharci baan soo qaatay baasaboor maraykan baan haystaa shalay duruuf ay ka haysay alxamdulillah waa ladnahay balaayo ma qabo nolol waan haystaa sharci waan haystaa laakiin haddana maanta waxaan kaga faraxsanahay halkaan aan fadhiyo jawi fiican baan ku haystaa dardaaranka waxaan oran lahaa war qurbaha yaan loo hanqaltaagine dowladana ubad dhalinyarada ha eegto dhalinyaradana dalkooda ha eegteen ajiib waa tahay qaybii dhaxan ku sii saqaynaa maxamed haddii maanta aan ku dhaho dhalinyaro badan baa saxaafadda u hanqaltaagaysa waxaa soo martay xilli dahabi ah oo runtii qof walba xasuusto u dhaho yaa waagaas joojiyo anigu runtii aan ka mid ahay maxaad oran lahayd maanta dhalinyarada saxaafadda u hanqaltaagaysa talas maxaad dhihi lahayd wallaahi horta adduun weynaha saxafiyiintu magac iyo maamuus bay ku leeyihiin markii magac iyo maamuuska laga yimaado haddana maaliyad bay haystaan adduunka cid walba waxay raadinaysa waa maal wey dhalinyaro waxaan oran lahaa war si aad maal u heshaan magacaad u heshaan mansab aad u heshaan magaceenu uu raago waxaad aad tabinaysaan mug ha yeesheen meel loo dayana ha yeesheen haddii ay kaa tahay doolarada iyo santinada aad ka helaysa maanta oon beri lahayn magacaaga ma jirayo mansabkaaga ma jirayo maalna weyn aad meel aad ku gaadhana ma helaysid keliya waxaad samaysaan warbixinada iyo wararka aad samaynaysaan iyo barnaamijyada aad soo tabinaysaan waayo hadda saxafiyiinta Soomaalidu qof bay wareysanayaan waxa la yiri buu leeyahay cidda la yiri xitaa war uma hayo cidda yaa yiri hadii la yiraahdo wala laha buu leeyahay warkan intaan qofka aad wareysanayso uusan ka daba keenin uusan kugu qabsan soo akhri xogta soo ogow adoo aad ka awood badan tahay waxaad sheegayso oo kaga xoogaalsan tahay siriisa aad ogtahay qofka aad wareysanayso su'aalaha weydii waxa la yiri tirada badan ka daaya marka waxaan oran lahaa war magaciina ha raagay si magaciina uu raago kaga faa'iideysta maalintaad mikrofoonka qabsataan waxaad tabinaysaan inay noqoto wax aan turxaan lahayn wax xogta aad soo tabiseen ay tahay marjac loogu laabto laga soo heli karo inay leeyihiin hadday tahay waxa la yiri iyo waxa la lahaa adiga wariyaha ah waxa la mid tahay dadka magaalada jooga xog badan ma hayso si magaalada aad uga duwanaateed dadba hadda waxay ku oranayaan waxaan ahay wariye investigate journalism ama journalist ana xog aruuriye ama xog raadiye saxafi baana isagiiba dabagale saxaafadeed baana haddana isagiiba xogta ka maqanba luqadihii waa ka dhintay waxa way dad badan hadda social media ka arkaysa ku haya waxaan ahay wariye ku takhasusay sida xogaha loo helo haddana isagii laftigiisba isla qof isaga israadinay waxa ma raadin karo marka
saddexda qodob aan oranay waxa weeyaan magacaaga iyo mansabkaaga iyo maalkaaga waxaad ku raadin kartaa xog meel quman laga heli karo ama loo raadin karo inaad samaysid si sharaftaada aad u ilaalisidna lacag kale hadeydayne war sugan ummadda u soo bandhiga xilli fiican baad joogtaan kaamarad fiican baad haysataan telefono fiican baad haysataan technology fiican oo internet fiican iyo editing fiican iyo software fiican baad haysataan kaga faa'iideysa ummadda inaad wax u faa'iideysaan laakiin idinku inaad ka faa'iidaan kaliya oo xogaaga yar ee lacagta jeebka aad gashanaysa kaliya ka raadinina ummadda macallimiin u noqda aad iyo aad waa arrin runtii wanaagsan weeye Soomaalidu waxay dhahdaa wax kuma dhagi Ilaahay waan shaawansan marka waana ku filan way haystaan haday wax ku qaadanayaan aniga iyo dhalinyaradii saxaabada ku jirto yar cid walba waxay ka dhirsan tahay Maxamed Xasan Xaashi asagoo heer wanaagsan saxaafada ka jooga la daawado magac runtii qiimo la kula deegaankan inuu ka cararo ka baxsaday laakiin caawa waxaan rabnaa inaan ogaano bal ujeedada Maxamed uu deegaanka uga baxsado uga cararay horta hodmanay baxsadka iyo orodka iyo ma aragtay in qof deegaankiisa uu ka haajiro ama uu ka agbadasho aniga ugama horeyn dad badan baa deegaanadooda ka hayaamay qof walbana sabab uga tagaa uma malaynayo meel aan kaga magac weynaa kaga sharaf badnaa kaga qiimo badnaa in ay jirto jiri doontana deegaanka Soomaalida iyo Jigjiga maalinteedu markaan soo degay dad badan baa waxay raadinayeen goortaan soo degay si ay ii soo dhaweeyaan taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay jacaylka dadka bulshada Soomaaliyeed ee deegaankan ay leeyihiin wadad qalbi wanaagsan wadad runtii duntooda aad wanaagsan tahay qofkooda qiimaha leh aad bay u qadariyaan ma sha Allah xilli anigu gobolkan istaagay tuuladan istaagay degmadan istaagaba qof walba Maxamed leeyahay go'ashaala iyo macwiista iyo dharka iyo adduunka iyo cadarada la igula soo ordayo aad yaabaysid baan maalin anigoon ku faraxsanayn Jigjiga kaaramarda markaan sii maray saa u soo jalaacay xanuun bay u reebtay meeshan habeenkan soo geliyay markaan soo geliyo shacnigayga iyo quruxdayda waxa ii yeelay waa bulshada i daawanaysay Maxamed baa soo galay leeyahay markaan sii baxayay mugdi baan dareemay waayo waxaan ka baxayay bulsho i jecel iyo deegaan la iga jecel ka tagay xanuun bay iga ahayd marnaba kuma fikirin deegaankaas aad magacayo sumcadaas aad ku yeelatay baa si sahlan aad uga tagaysaa kulay xilli iska adag bay ahayd qofba si bay u saameysay anigu dawlad iyo dal i ceyrsanayay ma jiran hab yaraatee laakiin shakhsiyaad baa jiray waxaa jirtay markii nidaam uu meel ka jiro shakhsiyaad baa ka faa'iideysan kara anigu warbaahin baan u shaqaynayay dadka dhalinyarada markaasi loogu ama ugu saameynta badan baan ka mid ahaa bulshada sumcad ku leh maamulka uu u shaqeynay laftigiisa sumcad ku leh oo ixtiraam u haya ayaan ahaa anigu shakhsi baan anigu Maxamed baa la yiraahdaa shakhsiyadayda ma qaadanayo ama kaama qaadanayo dulinimo kaama qaadanayo hadaad dignity-ga iyo sharaftayda aad meel uga dhacdo ma qaadanayo ilaah bay abuuray rabbiga subxaana qaadirkum ma ka baqa cid kale kama baqa haddii waxaanan ii qalmin aad ila timaadinna hada wax kastaan uga tagaya anoo shaqadayda fiican tahay oon in iyo ceeb toona lahayn weliga ma maqli jirta sagaaro maxaa la oran jiray waxa biya kuma cabto maxaa la shimbirta qoor qabasho biyo kuma cabto hada qoor qabashadaasan diiday anoo war tabinaya bal haddii lagu yiraahdo war tabinaya warbixin samaynaya wax kale aad aaminsan tahay warkaaga ma tabisa haddii lagu yiraahdo laga dhaxalaya waa laga dhaxalaya wax kale aad aaminsan tahay meesha hebel maraad maraysaa anigu weligii ma yeelin dulinimo ma qaato idina ma noqoto in uu sida uu rabo inaan u sameeyo anoo gurigan masaxay 10 jeer intaad ii timaad maad masaxda guriga maxaan hayaa waa hadal khaldan hadalladaasi go'ashada leh dulinimada leh karaamad siigida leh baan shakhsiyan u adkaysan waayo dhalinyarada qaarkood saaxiibada xabsiya u galeen indhaha dhibaato ka soo gaadhay jirkooda dhibaato ka soo gaadhay sida saaxiibkii Buurgaabo isagoo xiran oo dhibaataysan oo si fool xun loo soo qaaday isagoo waliba bilaashaada qabaal dushiisa lagu soo riday xabsiga jaloogaadeen la geliyay anigu mucaarad ma ahayn maxaan mucaarada yaasan mucaarada nin dhalinyaro oo reerkiisa u ordayaan iska maskiina
bal haddii anoon mucaarad ahayn cidna aanan siyaasad ku haysan siyaasadna aanan ku jirin nin dhalinyaro iska warramaya aan ahay haddii takoorid iyo eray runtii xanaf leh laygula hadlo ma yeelin inaan qof kala u qaado go'aan baan qaatay go'aamadeeda marka ma sheegin waa baxaya waa dhoofaya waa qofkii caaya waxaan dhihi jiray nin wanaagsan baa tahay baan dhihi jiray isagoo caaya isagoo ii hanjabaya baan danahayga wadan jiray laakiin kama yeeli jirin markuu caaya inaan aamuso warana caaya ma dhihi jiray adiguna maadan dhalin go'aanka maalintaan qaatay hal mar baan waxa way gaari goostay maalinta diyaarad ma jirin bas baan dirdhaba u qaatay waxa weeyaan meeshaasaan ka baxay anigu cidna ma caayin Ethiopia wax kama sheegin dawlad deegaanka wax kama sheegin xukuumadda xilliga jirta wax kama sheegin ilaa hadda wax kama sheegayo waayo carabkaas ilaahay ima sameeyninba laakiin shakhsiyaadka anigu dhibaatay xilligaasi hebel ma dhahayo way iskaranayaan muhiim ma inaan hebel aday caay hadal nin raga ma ah qofka aniga dhibaatay wallahi cafis wigaya isaga dadka aad ugu jecel ixtiraam baan u hayaa wii gargaarayba passport Mareykan buu isoo sameeyay waad mahadsantaan leh marka sababta wadanka iga saartay waxay ahayd in aan qaadan waayay waxaan ii qalmin cidana maanta aan cidan wax u haysto ma jirto kii anigu ereyga qalafsan igu yiri baan la warnay in adeerkay baa tahay walaalkay baa tahay saaxiibkay baa tahay afiya leeyo musaamax marka tala ahaan dhalinyaro hadda waxaan maqlayaa aan arkayaa xukuumaddu iskama warhayso xukuumadda dadku madaxweyne u yiraahdaan war madaxweyne dalka isaga ka taliya laakiin 100 hayadood baa jira hayadihiiba waxa laga yaabaa shakhsi kamid ah in hay'adda u shaqeynay inuu qof dhibaateeyo madaxweynaha muxuu ku tagrifalay awoodda dawladda madaxweynaha raalli kama noqonayaba hay'adahaas waxa la rabaa in dhalinyarada qofkaasi dhibaatayna inay ka qabtaan haddii hay'adaha nabadgelyada yihiin waxbarashada haddii yihiin sector walba shakhsiga xun ee ku jira dhalinyarada dhibaatayna in laga qabto marka madaxweynihii dawladdii sharaftoodii way jiraysaa marka hodmanay waligii kama warramin laakiin caawa waxaan ku leeyahay sababihii aan dalka uga baxay taasi ahayd waana ku faraxsanay dalkayna mar labaad ku soo laabtay anoon cidna dhibaataynayn idana ii cagajuglaynayn oo freedom of speech baa leeyahay dacaawinan freedom of speech aanu hadinaan Mareykan oo joogo inaan moodayo wadanka sababay baan aaminsanahay waa jigjigadii asaga ka tagtay adoon hadli karin oo wax sabab adoon maaragtay gelinaad ka carartay maanta inaad soo hadasho shalay aan u dhibaato ma geysan cidna ana dhibaato la geystay haddana waxa la cid kasto erey xanaf la igu sameysay war cafi alayhi musaamax war saaxiibeen aan wada qadayn marka muhiimadda waxay tahay warkii dhibaato lagu sameeyay ha go'aanin dhibaatada lagu sameeyay ka sii soco iska cafi qofkaas isaga dhiban way mar walba waxa xasuusan dhibta uu ku geystay qof xunay adduunka qof xunayde waxa ma soo kordhiyo marka alxamdulillah waa soo nabad noqday maalinta bas baan ku baxay laakiin maanta diyaarad baan ku yimid aroon cabsanayn marka ilaahay baa qadaray waan ku faraxsanahay dhalinyarada kale waxaan dhihi lahaa dhalinyarada kii nolol doonanaya isbedel nololeed iyo waxbarasho raadsan ha baxo dib uma arko laakiin qof siyaasad loo dhibaataynaya yana dhalinyarada la gaarsiin heer noocaas oo kala dalka uga baxo laakiin qof fursad doontay ama waxbarasho doontay ama nolosh inuu soo bedesho doontay ta xukuumad ma dhibaatayn isaga daniisa aaday laakiin shakhsi la dhibaatay la caburiyay oo talent loo hibale dalku markuu ka baxo ma wanaagsananayso marka haddii xukuumaddu arrimahaas kulli way og tahay cidda arrimahaas ka dambaysa balse il gaar ah ku xigto waa tahay dadku marka wax lagu sameeyo waa laba qof aarguta iyo qof cafiska doorbida adigu maxaad cafiska doorbida niyahow waa astaanta gobta waa astaanta diinta waa astaanta soomaalinimada waa astaanta dhaqanka qofka hadduu qof sharaf leeyahay oon cuqdad iyo ciil lagu soo korin cid walba waa cafiyaa qofka hadduu garwaaqsan yahay qofka inuu kaa khaldami karo adna aad khaldami karto waxaad u cersataa baan jirin marka inuu ilaahay annaga cafiyo dembiyadeeda gaarka ah ayaan wax walba laygu sameeyaan u cafinaya marka anigu xabsi ma gelin layma jir dilin erey qof asaaga igu yiri miyaan la cabursanaada may ma dhacayso cajiib waxaad joogi jirtay diradhaba oo wax ku baratay Addis Ababa hadda adiga safarka aan ku yimid oo maqnaa maxamed meeqa luuqadood buu ku hadlaa wallahi horta anigu luuqadaha ma badna libax iskama dhigayo horta labada lahjadood ee Soomaalida ku hadasha isku sibaan uga hadlaa afka Soomaaliga iyo afka Mayga iyo af Soomaaligu si normal aan uga hadlaa af xabashiga suuqiga aan ku aqaano magaalada ku maraa Englishka alxamdulillah ku fiicanahay
waxbaan ku qoraa waxbaan ku akhriyaa barnaamijyadeedii warbixinada anaa ku turjunta carabkuna aljazeera ka dhageystaa laakiin kuma hadla عجيب ما شاء عجيب الله. عجيب صاحبي بدن بان كله هاي قبل كلوجا هالله أفك مايجا ورت أراد تشعل وده أدو قيم بدن وأنا شعلان لها بالمر إن صوب وخذ ما دي وقلاني سينا نفك السلام هو كو قلاني أنا تكسر أنتو يقولون كل هذا مش كسر وهذا لا بدو ها قرتها ميلومي كسلام مي ري أرلادي كسلام مي تدان إيه دنجيلو أنا قصد يا ركض الله دي هجاسا كوينة دي دد إيه دم فيلم أتين لفت جرين iyo koonfur galbeed may siin lahaa insha Allah maraxsan boogada doona dooy oo dareer fayla diin soora iyadana kuwiinadi qasa dheeray bay dhabana may rajay mar in hay dhawaay doontaan eeda siin ka mahad eriye eeda siin jeele siin salaame hodman showna ka dhawaada runtii aad baan u yahay intaas waa inaad ii qortaa inaad rasaxabtana saan uga helay ma malayn kartid aad baan u salaamayaa cid walba oo lahjada mayga fahmaysa runtii waa jeclahay inaan barto waa tahay markii laga soo tago saxaafadda iyo baabuurta dheer aad in badan kasoo dhex warantay maxamed xirfadda kale oo ku fiican yahay maanta uu dooran lahaa maxay noqonaysaa horta hodmanay anigu horta saxaafadda waan bartay waa ku shaqeeyey markaan Mareykanka tagay shaqooyin kale oo shaqooyinkan adigu kambaniyada dawladaha loo shaqeeyo waxaan ka shaqeeyay waxa la home care la yiraahdo iyo ka soo shaqeeyay kadibna baabuurtaas aan waday wallahi anigu xirfadaan u jeclahay waa ganacsiga in ganacsi anigu aan leeyahay aan samaysto aan maamulo ayaan aad u jeclahay laakiin hadda xirfad aqoonteeda anigu aan leeyahay aqoontaas aan leeyahay haddaan tan ka tago taas aan tegaya ma jirto saxaafadaasi aan bartay aan ku shaqeynayay gaarigaas aan wadayay weligii dar walba noqonaysa isma lahayn laakiin waan noqday maanta professional driver baan ahay ganacsiga haddaan galo runtii waa jeclaan lahaa inaan dhex galo laakiin aqoon badan uma lihi ganacsiga marka xirfad hadda gaar oo aan sheegan karo aan dhihi karo haddaan tan aan waayo taasaan kaga baxsanaya ma jirto laakiin kulley nin xeelad badan le baan ahay فريد واتاي haddii maanta maxamed duruufahoo dhan ay u saamaxaan halka uu ku noolaanaya xaggee bay noqonaysaa oo jeclaan lahaa inuu ku noolaado oo meel u dhaafeen wallahi horta deegaanada Soomaalidu waan wada jeclaa deegaanada Soomaalidu aad baan u jeclaa anigu horta dawlad deegaanka si gaar ah u jeclaa waayo waxa ay jecelaysay dawlad deegaanka dhulkiisa ma dadkiisa way insha Allah Soomaalida dhan dad wanaagsan way anigu Soomaaliya meel badan ma ka tagay Somaliland Puntland illa koonfur Soomaaliya dad koodhan way wanaagsan yihiin deegaan ahaan anigu waxaan shakhsiyan aad u jeclahay dhul xeebeedkan jeclaa meelaha badaha leh baan aad u jeclaa gobolka bari wali ma tegin meel jasiirado oo aan daawaday baa jira caluula iyo xaafoon iyo runtii meelahaas qandala iyo hadday ii saamixi lahaayeen deegaanada Soomaalidu hal arrin baan fursadan kaga faa'iideysanaya war qofka hadduu Soomaali yahay qabiil ma laha aniga maanta haddii fursadda ii saamaxdo xoogaa ilaahay i siiyo inaan qandala intaan imaado guri ka dhisto oo business ka samaysto in ay ii saamaxdo oon lay arag inuu nin kale deegaan ka yimid inuu yahay qabiil kale inuu yahay ee uu yahay nin Soomaali dhalinyaro kale Soomaaliyeed inuu fursadda uga faa'iideyn karo marka deegaanada dadka kale lagu soo dhaweeyay Soomaalida kale lagu soo dhaweeyay nin jigjeer ka tagay inuu qandala business ka samaysan karo kan qandala ka yimidna jigjeer inuu business ka samaysan karo dadka isdhexgalkaas in la sameeyo marka anigu deegaan meel gaar ah ma dooranayo waa deegaanada Soomaalida dhan wada jecel laakiin xeebahan aad u jecel meelahaasi qandaladaas iyo caluuladaas haddii la ogolaado waan jeclaan lahaa inaan ku noolaado darmada ku saamaxaan waa tahay maxamed dharka la xirto kalarkee ugu jecel yahay واو أنا أنت هذا حنا إن شاء الله عداني مذو يا عدان و vibrant colors كيوي وده كان إن شاء الله يوي مذو يا عدان عدان سكو حده نك مجال أسرة أنا هاي من السنة واتاي سيدا أن حكتك هاي واحد كسوتش ده قويس سوغانت الصومالي ده هيدا كله لو حنته أما مرت رنتي أن بدن كأرك كنا مغلي بل محمد يسوقانت إنا لله سيسكوين حكت حاجات كانتي ولا جم مغلين أنا كل شيء هاد مني
anigu suugaanta hal eray iskuma aadin karo hal eray iskuma aadin karo weligaa ma gabdid weli gaba iska dhaafo ma geeraarin heesna ma xifdin karinba waxaan aad u jeclaa abwaanada qaryaandhoodaan hadraawi iyo ninkii allah u naxariistay inta way wada dhinteen cabshir bacadle gabay wuxuu oran jiray erayada waxaan ka xasuustaa soomaaliyay hadal yaroo huriyey laabtayda oon haysan kari waayey baan soo hinganayaaye hawadanan soo marinayaa hiirta waa beriye hadda inta kaliyaa ku dari karaa marka gabayada runta aad waxaan u jeclahay wadaniga ah wadaninimada ka hadlaya aad baan u jeclahay marka wixii soomaalinimada bogaadinaya baraarujinaya waan jeclahay laakiin haddaad caawi igu tirahdid waad u dhimanaysa laba eray isku dug waa habeenka xaliyootay malaha aabbahay aad buu ugu fiican gabayada wuu xifdiyaa wuu ku gabiyaa maanta dhan 10 maahmaahod buu waxa ku sheegay laakiin anigu may adiga xaggaaga maadaama isku abtirsano adiga xaggaaga aad baad ugu fiican tahay waxaan sheegayaa taariikh ahaan familiga waa ku maqlay arrimahaas awgeena waa asna awgeena waa la ii sheegay waa tahay cunto la cuno maxaa ka heshaa oo favorite-kaaga ah wallahi horta cuntooyinka anigu aad waxaan u jeclahay dhaqanka koonfur Soomaaliyan ka yimid waxaan aad u jeclaan jiray muufada iyo soorta iyo digirta marka reey magaaloobayna bariis isku kariska oo la yiraahdo ma aragtay ama maxay yiraahdaan biryani rice kaasaan waan jeclahay laakiin haddii waxaas reey magaalka laga yimaado cuntada organic ah ama yiraahdo dhaqanka aad baan u jeclay soorta muufada digirta aad baan u jeclahay armaas xagaas lagu leeyahay kuwaas aad baan u jeclahay in kasoona aad u cuninba meel bariis basta laga cunaa waa tahay fanaaniinta Soomaalida fanaankeba favorite-kaaga dhigaysata aad baad idaateen fanaaniintani fanaaniintu tood man wada jeclahay heesoodan waan wada dhigaystaa haddaad dib celisay aad bay dhibaateen saan ku qoslay waxaan in hadhow liiro ninka odayga hebel buu doortay sida la isku dhibaatay fanaaniinta dhalinyarada dhowr qof aan ka jecel wallahi la cadiim waan dhageystaa heesoo fanaan da yar laakiin dadka horena la jira waa maxamed xuseen Lafoole ninka la yiraahdo macne la ninka dhalinyarada saaxiibana waan dhageystaa nin aad wanaagsan oo dalmaryar la yiraahdo Mareykan la joogan runtiisna waa talent buu leeyahay ninkaasna waan dhageystaa hadda dib yeelisidna Samatar oo maxamed Salebaan Tibaa biya raggaas oo dhan badanaaba horta heesa waqti ma geliyo laakiin markaan israado xogaa yara maskaxda daji raggaasaan dhageysta maxamed Salebaan maxamed xuseen Lafoole maxna la waan dhageystaa heesooda runtii aad bay u fiican yihiin intaas oo nin aad sheegtay mid kamid ah hadaan ku dhaho heesihiisa bal mirtiri ku luuqay kuma dhahayo keema noqonaya dhibaataynta soo gabagabeynaya wallahi dabacsanida hadalkiyo deganaantu inan yahay oo waxa lagu deeqo waxa dareenkiyo nafta damaca geliye kaaga doortay qeyrka tasoo makiina la foolaa waa culusta ma fudud la foole iyo raggaas oo dhan waxay kamid yihiin ragga u haya shukaanta fanka Soomaalida ee casriga iyo kii xaalabadaba haddii maanta aan ku dhaho waxaad dooranaysaa hal fanaan oo kuwa dhaantay ah keebaa dooran lahayd maadaama dhaantadu adigu dadkii xidigaha u shiday markii daawashada la dhahay wareysiyada hadda waxaan aragnaa markii la soo qabto tiimkii dhaantada oo dhan adoo mid kasta ku dhex jirto gacanta saare wallahi horta hodanay ragga dhaantay dhammaan saaxiibaday wey qaabaan dhalinyarada qaarkood way kala yihiin intii waqti xilligeygii 3 nin baan anigu khaas ii ahaa saaxiibana nahay isla soo shaqeynay waxa shaqooyin badan soo wada qabanay saaxiibkay Cali Dhaanto Cali Bashiir oo haddana kamid ah dhalinyarada soo dhaweysay runtii nin aad u jecel saaxiibana waqti badan soo wada qaaday aad u qiimo badan Cali Dhaanto salaamina Nuur Maxamed Caraale dagaay waa ma sha Allah Nuur Caraale waxaan ku kooba anigu waxaan ku qiyaas ma garanaya ninkaasi Mareykan ba hadda isla joognaa waa nin ahlu diina ahlu cibaada ahlu sharaf dhaqankii dhaantadan aad u yaqaan ninkaasi
eediisa ceebtis kuma soo gaarayso axmed budul ismaaciil runtii qaryaan buu yahay waa qaryaan dhowdaan qaryaan dhaantay miyaan dhahnaa isna ninkaasi waa the best way marka saddexdaa nin anoo dee muxidiin shaahid iyo waxa weeye ninka la yiraahdo awartooti iyo xasan yare iyo raggaasi oo dhan aan wada xusay aan wada jeclay ma aan koobi karin intaan ka tagan aan raalli ahada leeyahay de magacyadin laga yaabo inaan laakiin saddexdaani kala xulan maayo ima kala dhacaan saddexda hal mid bay ii wada yihiin cali nuur iyo axmed budul maasha allah marka ragga ma kala sooci karo aad iyo aad dhibaataynta waa soo yawaadayni waa ku arkaya atahay markii laga soo tago fanka iyo arrimahaas iyo bal haddii maanta lagu dhaho masaajidka tujinaysaa ka war hodmanay sir aan warigay fashilin baan kuu sheegaya anigu ardaynimadayda mu'adin baan ahaa laakiin jana kabod hay dhihin way wariyoon baan anigu fanaan ma yihiin ma wariyash waa caadi markaan ardayga ahaa dugsi quraanka dhiganayay degmada Galaadiyeed mu'adinka loo xushay baan ahaa mu'adinnimada codkayga dheeridiisa wariyanimada halkaas ka soo bilaabay way dadkan ugu yeeray la wariyanimada dad baad u yeeraysaa waray baad ku haysaa Galaadi baan ka soo bilaabay mu'adin baan ahaa markuu macalinka maqan yahay ma imaam baan noqon jiray marka haddii maanta imaamnimo iyo khadiibnimo la ii doorto labadu waa ka soo bixi karaa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا واتها إن بعاد ما أهن شيخ وريه أرمى بدن بحالك كل ما يان سقطي قنت يجي جودن سوقرني محمد وعاوة هدان كله هاد عيل دور غف ياد مهد عيل لسه نرشاد والله هرتولال إد والبا وانا إنك دحية وانا جيجا شعل وهرمركيga jecel waanu mahad celinayaa qof kasto walaal Soomaaliyeeda meel kasta ha joogo waanu mahad celinayaa labada qof ee adduunkan sababay inaan maanta halkan fadhiyo adduunkan ka mid noqdo bini'aadanka ku nool hooyada iyo aabahay hooyada Mariimo Cabdiqaadir iyo aabahay Xasan Xaashi dalaantood halkan ma joogeen marka waanu mahad celinayaa qoyskayga ubadkayga cid kasta oo runtii wanaagayga jecel adigu aad ka mid tahay ku mahad celinaya oo runtii adiga laftiga maanta barnaamijkan igu marti qaaday at the same time gabar dhalinyaro ah oo abti u ahay saxaafadana mar walba igala tashan jirtay oo aan arki jiray heerkan inay gaari doonto dhiirigelintaadii iyo dhiirigelinta aan ku siin jiray maanta waxaan aaminsan inaan ku faraxsanahay heerkii aan kula damacsan aan kula jecel inaad joogtid mid ka sareen aan ku rajeynaya waad mahadsantahay abti aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa si kale haddii aan idin baro maxamed xasan xaashi oo runtii shakhsi aad iyo aad ugu weyn oo hortiisa aan ka oranaynay asna uu og yahay aniguna aan ogahay waa gardaadiyahayga saxaafadda iyo macalinkayga toosinta markii aan soo galayay xirfadan isku riixa badan runtii qofka ka soo dhex baxay oo adag yahay in badan oo balaaran baan ku mahad celinayaa barnaamijka adaa soo xiriisid daawadayaal waxaad nagala socoteen waa Hodman Show barnaamijkeedii anigoo Maxamed Xasan ah waa idinku martiba ahaa Hodmanna way wareysanaysay akhyaarta suurigelisay duubista hagaajinta iyo farsamadana waanu mahad celinaynaa intaynu ku kulmi doono mid lamid ah barnaamijkani Hodman Show nooli kulante